Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee aanay dad badani u maarayn inay dhisaan kalsoonida naftooda waa iyagoon marnaba ogaan sababaha dhabta ah ee ka dambeeya kalsooni la'aantooda. Haddii aad la hadasho 10 qof oo aanay isu kalsoonayn, waxaad ogaan doontaa in mid kastaaba sabab gaar ah uu bilaa kalsooni u yahay. Taasina waa sababta ay ugu horreyn muhiimka u tahay inaad ogaato sababaha kuu gaarka ah ee aadan isugu kalsoonayn. Intaa kadibna aad ka shaqayso meelaha aad kalsooni darrada ka dareemayso. Si aad u dhisto kalsoonida naftaada ka hor inta aanan sii gudgelin muuqaalkan, fadlan subscribe saar channelka haddii aadan hore subscribe u saarin, gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada. Sababaha kala duwan aanay dadku isugu kalsoonayn. Waxaan hadda kuu soo gudbin doonaa sababaha ugu caansan ee qofka ku sababa kalsooni la'aanta. Haddii aad isku aragtay mid ama labo ka mid ah sababahan, ka shaqee sidii aad xal ugu heli lahayd sababahan. 1. Dhibaato ka haysta muuqaalkaaga. Maxaad u dareentay kalsooni badan kadib markii aad xirato dhar cusub ama dharkaaga kuwa ugu quruxda badan? Sababtaa waxay tahay muuqaalkii aad ka heshay nafsadaada ayaa isbedelaya. Bal haddaba ka waran haddii aanan qof ku qanacsanayn muuqaalkiisa, isteelkiisa iyo qaab jireedkiisa, miyaan taas saameyn kalsoonidiisa? Haa, taasi waxay saameyn aad weyn ku yeelanaysaa kalsoonida naftiisa. Taasina waa sababta inuu dhiso muuqaalka naftiisa ka haysta ay u tahay hawsha kaliya ee ka caawinaysa inuu kalsooni aad u sarreysa yeesho. 2. Xirfado la'aan. Haddii aad aaminsan tahay inaadan xirfad kugu filan u lahayn si aad u qabato hawl gaar ah, tusaale ahaan in aad la hadasho qof aadan garanayn oo kale, waxaad dareemi doontaa walaac iyo diiqad markaad hawsha qabo istiraa. Walaacuna inta badan wuxuu muujiyaa kalsooni darro. Haddii aad walaac ama kalsooni darro dareento markaad hawl gaar ah qabanayso, ku dadaal in aad xirfad aad u leedahay hawsha aad qabanayso aad iskaga dhisto. Haddii ay kugu adag tahay in aad la hadasho qof aadan garanayn, waxaad u baahan tahay in aad horumariso xirfadaada iyo xiriirkaaga bulsheed, iyo sidoo kale in aad dhisto xirfadaada la sheekaysiga. 3. Aragti been ah oo aad aaminto. Dadka bilaa kalsoonidii ahi waxay arkaan waxyaabo aan meesha oolin, waxay si qaldan u turjumaan ficilada dadka, waxayna samaystaan mal-awaalo been ah iyagoona xataa wax caddeyn ah u hayn. Sida iyagoo iska dhaadhiciya in aanu qof jeclayn, inuu qof gaar ah necab yahay, ama in qof uu u arko inaanu qiimo lahayn. Si aad u dhisto kalsoonida naftaada, beddel aragtida iyo mal-awaalka beenta ah ee aad adigu samaysato adigoo naftaada si fiican ula hadlaya. 4. Isbarbardhig aan fiicnayn. Qofka aan isku kalsoonayn wuxuu sameeyaa isbarbardhig aan fiicnayn, isagoo eegaya meelaha uu ka liito, isla markaana barbardhigaya kuwa aanan lahayn meelaha uu ka liito. Haddii aad rabto inaad naftaada barbardhigto qof kale, ha barbardhigin oo keliya meelaha aad ku liidato, ee isbarbardhig buuxa samee oo eeg meelaha aad kaga fiican tahay qofka iyo meelaha uu isagaba kaaga liitaba. 5. Kalsoonida nafta iyo dhibaatooyinkaaga nolosha. Awooddaada aad ku wajahayso loolamada nolosha waxay si weyn u saameeyaan guud ahaan kalsoonida naftaada. Haddii aad badanaa ka cararto oo aad iska indhatirto dhibaatooyinkaaga ama aad ka wahsato, waxaa si weyn hoos ugu dhici doona kalsoonida naftaada. Markaad bilowdo in aad si geesinimo leh u wajahdo dhibaatooyinkaaga noloshaada, kalsoonida naftaada si aad ay sare ugu kici doontaa.